waxaa la leeyahay madaxweyne farmaajo xilligii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay waraaqda ahayd in Axmed Madoobe uusan qabsan karin doorasho wuxuu soo saaray qoraal uu leeyahay dowladda federaalku waa inay u ogolaato maamulka Jubbaland in uu qabsado doorashadiisa iyo maamulada kale dalka laakiin waxaa la leeyahay markii Axmed Madoobe hawlihiisa samaystay isku caano shubay madaxweyne farmaajo meel uu jaan iyo cirib dhiga waa la waayay maamulka Jubbaland waa ka aamusay Axmed Madoobe iyo tiimkiisu way sugayaan waraaq soo qoro xasan sheekhi waxay leeyihiin farmaajo garabkiisa waa ka baxay mucaaradkii iyo farmaajo Madoobe u dhaxay bal arintaasi sidee wax uga jiraan Axmed Madoobe iyo farmaajo siyaasadda in badan way isqabteen Axmed Madoobe waa ninka kaliya markii ugu horreysay ku fikiray inuu soo xiro Abdullaahi Farmaajo oo ciidan Ethiopian u diray sheegay maanta markii Axmed Madoobe la doortay uu sheegay Ethiopian la soo diray madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxa saameysay arinta gobolka Gado uu uga aaminsan maadaama hadda gobolkiisii qayb badan oo kamid ay dawladda federaalka taageereen sidoo kale ay ka soo horjeesteen Axmed Madoobe in farmaajo hadda ka hor uu soo bandhigay 200 milyan oo dollarka Mareykanka si uu iskaga daayo kursiga madaxtinimo ee Jubbaland sidoo kale uu yiri anigu masiirkayga ma gadanahay arintaas maxaa loo turjumi karaa maslaanta farmaajo iyo hadalkan dambe ee Axmed Madoobe علي مسار وقمر وأحمد مذوبي وانين آدو ديران أحمد مذوبي وآدو أضعلك وانين عيدا عنك أحمد مذوبي علي مسار كيسة شيخ شريف يا عبد الرحمن عبد الشكور يو ركب بدنه خير وكجرو ما كسو خيب قلي دونه وسؤالها لي سويديني حمر يفر يعني مكا قرونك هذا عدم لو قلان دونه هدي لو ديدو وحي فرماجو شري وكو ايديني حاسس شق يومان سميني هدي لو قلادو إن لو قلان دونه ما هو مقتبة لكن أحمد مذوبي يقول سياسة جارية واتهي مصلحه مدحوين حسن شيخ محمود أو حلقي فرماجو كو ايدينه إنه قرونك كعليي مدحدي معارض iyo siyaasiyiin taageersan Axmed Madoobe dhinaca kale xoog ku tagay magaalada Kismaayo ka qayb galay cali masaarka Axmed Madoobe maanta muxuu ka yeeli doonaa siyaasiyiinta Axmed Madoobe raba in ay ka qayb galaan cali masaarkiisa kulay siyaasadda Soomaaliya markaad dib u fiiriso qof kasto aqlinan uu qiimeeyo aragti fog ma dhisna mucaaradka xataa markaad fiiriso aragti fog ma laha حسن علي خيري أو شلي أحمد مذوبة لها دور الشرع درا يا قبض يسوي رئيس وزراءها ما تحولي أحمد مذوبة سحنته هركسه شيخ شريف شلي ولا صفنا أحمد مذوبة ما تقول صفيح ركله أو حاجة أحمد مذوبة شلي لا صفنا وزير فقه وكميديا حسن شق وكميديا حمزة وكميديا وله وحماش كسر شرع الدرا شلي إنه يسعد بالتميين مركز سياسة الصومالية فيشني أركتي فوق قف كله ملها وحي ما أنت جوا لا ولا هذا ولا قصعده هالك سياسة الدنيا ده قف كان كنت سنة كور وحي كوهد لما أنت وكوهد ليه وماشي سوسن نفس سنين فكر كيس وجديه مركز مدحين حسن محمود سيدا سياسة الصومالية وديسنتا مركان فيرينو رجب بدن لقما قبو إنو احترام معارض إني ديارات كسوقاتان قرونك مقدشو أو قرونك كسماهي أي كدقان أو أي نبات هالكاسي وقصو صعبتمان أحمد مذوبي أي ديب قصو رابط مقدشو إني دعدون تأمم ملينا انت سياسة أنك فاهم سنة لكن هدي أي دعضو وحي معنيه ذو نقون إيسا مدحوين حسن محمود مير كيسا تامو أها مركو بنانك جوغي ومعارض كوها هذا نو إسبدل لمركو قده حقالي واحد كودا شالوحي وديدنا وأما شلو وحو تاجر صنع يومانت ديدي كرا شلو وحو ديدنا ما أنتو تاجر كرا. أوكي سؤال كلا أيها كرر أنا يسأل أنت المعارضك. وحاليا مدحوين فرماجو حلقي وزارة arrimaha gudaha ay soo saartay waraaqda ahayd in Axmed Madoobe uusan qabsan karin doorasho wuxuu soo saaray qoraal uu leeyahay dawladda federaalku waa inay u ogolaato maamulka Jubbaland in uu qabsado doorashadiisa iyo maamulada kale dalka laakiin waxa la leeyahay markii Axmed Madoobe hawlihiisa samaystay isku caano shubay madaxweyne farmaajo meel uu jaan iyo cirib dhiga waa la waayay maamulka Jubbaland waa ka aamusay Axmed Madoobe iyo tiimkiisu way sugayaan waraaq soo qoro xasan sheekhi waxay leeyihiin farmaajo garabkiisa waa ka baxay mucaaradkii iyo farmaajo Madoobe u dhaxay bal arintaasi sidee wax uga jiraan horta sayid fahiyo maxamed abdullaahi farmaajo tiimkiisii hore ee siyaasaddu uu bedelay Fahad Yaasiin iyo rag waaweyn ka tagay rag hadda la socda qaar badan oo kamid aadan oo aqaana oo rag siyaasadda ku soo jiray oo farmaajo la xataa mucaaradsan like maanta isku aag ah farmaajo aagi uu uga baxay markii Axmed Madoobe la doortay siyaasiyiinta kale warqadaha la soo booday farmaajo wuxuu dib uga fakaray wixii shalay uu Axmed Madoobe ka diidana ee sharci darro waay u dhahay maanta inuu dhaho sharci waay Axmed Madoobe hala taageero biri asay ku soo laabanaysa biri uu madaxweyne noqon kara fahmaysa marka farmaajo دور سياسات وينو يعني رنتي مركا حقيقيا لقى هدلو إلا هدنا وإسقابي كما هدلين أرنت جبلان لكن إن جبلان حق ولا إن دور الشيء وقبضته واحد دستور فدرال كوقرن دستور كجبلان كوقرن با وين تحتاس بين مهن لكن أحمد دورتي دور الشرعي على دورتي ميلو كسوقر لما هيو تاس مركو حي موجينيسا إن كاركيس السياسات الدنب وإلى محمد عبد الله فرماجو هلك خير كاركيس السياسات هوري وجوبي كان دنبنا وسامين كيالن دون شيخ شريف شيخ أحمد
axmed isaga sum wallahi maalintuu dhahay ayaa xoogaa culays uu wajahay inkastoo nin qoyar socod uu yahay haddana uu hambaliyey cabdiraxmaan cabdishakuur hambaliyey rag badan hambaliyey marka waxay noqotaba maxamed abdullaahi farmaajo dhiiqada toos lugaha oo lama galin way is ilaalinaya wali sabab kaarkiisa siyaasadeedu ka fakaraya maxaa kale shalay soo madaxweyne ah ayuu lahaa axmedow sharci daro ayuu meesha ku joogaa maanta inuu dhaho axmedow sharci doorasho sharci aad qabsatay caqli ma noqonayso maxaa kale oo la dhihi karaa farmaajo uu diiday inuu axmed madow ugu hambaliyayo axmedoobe iyo farmaajo siyaasadda in badan way isqabteen axmedoobe waa ninka kaliya markii ugu horeysa ku fikiray inuu soo xiro maxamed abdullaahi farmaajo oo ciidan Ethiopian u diray sheegay maamulka markii axmedoobe la doortay uu sheegay Ethiopian la soo diray marka maxamed abdullaahi farmaajo kaarkiisa siyaasadeed inuu dib u ilaalinayo oo sumcadiisa uu ilaashanayo ayaa meeshaas ka muuqata isla axmed madoobe shalay markuu masaajid ka hadlayay hadal waxa ka soo yeeray ah in farmaajo hadda ka hor uu soo bandhigay 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka si uu iskaga daayo kursiga madaxtinimo ee Jubbaland sidoo kalena uu yiri anigu masiirkayga ma gadanayo arintaas maxaa loo turjumi karaa amsanaanta farmaajo iyo hadalkan dambe ee axmed madoobe kulli horta siyaasadda Soomaaliya mis siyaasadda dunida siyaasadda Soomaaliya waa loo soo shaqo tagaa 200 milyan sheegtay 500 milyan in waa lagu siinaa waa macquul inay san noqonin waa macquul waa siyaasad hadal siyaasadeed laakiin ani waxaan ogahay waxay tahay qof Soomaaliya madaxweyne ka noqday 200 milyan agtiisa waxa kama noqonayso marka xaqiiqiyan aan ka hadalno iska dhaaf madaxweyne qof wasiiraysan agtiisa wax ka noqonayn marka qaar way dhici kartaa gorgortan siyaasadeed dunida way ka dhacdaa laakiin axmed madoobe maadaama isaga noo sheegay garabka farmaajo way qurux badnaan lahayd in isagana aan ka maqalno hadalkaas waa run iyo waa been waxay noqotaba madaxii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NIS soo maray madaxa taliska madaxtooyada sidoo kalena xildhibaan heer federaal ah sidoo kale lagu tuhmaayo inuu ka agdhow yahay ka dahtaaban sidoo kale lagu tuhmaayo inuu ka agdhow yahay madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo qoraal ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook maxaa uu arintaas kaga hadlay Abdullaahi kulan wuxuu ahaa nin aad u awood badan xilliga nabad iyo nolol kaaliyihii wuxuu ahaa taliyihii nabad sugidda Faad Yaasiin wuxuu ahaa ragii aadka fikirka nabad iyo nolol u gaday ka mid ahaa arinta Jubbaland uu ka hadlay waa reer Jubbaland waa reer gada ninkan qoraalkiisa muhiimadiisu wuxuu ahaa ninkan madaxweyne kasta uu la dagaalamay farmaajo la dagaalamay Sheekh Shariif la dagaalamay Xasan hore la dagaalamay Abdullaahi Yuusuf la soo dagaalamay marka ninkan sidii la soo qaban lahaa in loo midoobo oo dawladda Soomaaliya ku taageeray in ninkan la soo qabto horta sida muuqata markii ugu horeysay kulana jiis uu la fikir noqdo dawladda Soomaaliya sababtoo ah in Axmed Madoobe la soo qabto siyaasiyiin badan taageersan oo rajadooda siyaasadeed ee Jubbaland ka dhex arka oo ka dhex arka dhaqdhaqaaqa maxaa ku yiraahdaa federaalka Soomaaliya waxyaabo uga xiran in Jubbaland ay taageeraan marka kulane hadalkiisa waxyaabaha uu gaday waxa kamid ah fikir hore uu soo bandhigay Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda nabad in aan ka tirsanayn oo ka tagay isna wuxuu yiri dhowr qodob uu soo bandhigay axmedow in la soo qabta qayb ka ahayd axmedow in la soo qabto umada laga qabta qayb ka ahayd marka waxaad moodaa tiim nabad iyo nolol fikirka soo qabashada axmed madoobe shaleen way aaminsanaayeen maanta way aaminsan wax iska bedeleen isma bedelin marka aragtaan waxa la dhihi karaa waa tiim xagga siyaasadda ka qaangaarsan tiimka dalka hogaaminaya ma dhihi karaa fikirka halkaas meel isaga yimaadeen sababtoo ah maxamed abdullaahi farmaajo waa tii la yiri wuxuu soo qaban rabay axmed madoobe waa tii wareysi uu bixiyay Faad Yaasiin Xaaji Daahir uu dhahaa waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku dhex jira axmed madoobe in la soo qabto marka ay waxay u arkaan guul Soomaaliya ay gaartay marka siyaasadooda la qiimeeyo marka axmed madoobe doorka waxaad moodaa in loo midaysan dhanka nabad iyo nolol iyo dawlad jadid waliba dad isku haleynay axmed madoobe ayaa hadda in la soo qabto aaminsan la dhihi karaa madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxa saameysay arrinta gobolka Gado uu uga aaminsan yahay maadaama hadda gobolkiisii qayb badan oo kamid ay dawladda federaalka taageereen sidoo kale ay ka soo horjeesteen axmed madoobe kulli inta hadda ognahay warbaahin ahaan madaxweyne farmaajo waxaad moodaa in isbedel weyn uu sameeyo xagga siyaasadda hadaladii tirada badnaa iyo dad badan oo isaga la shaqeynaya hadal badnaa iyo wixii waa la yareeyay dhaqdhaqaaqa xisbigiisa dib uu dhisaya kulamaha ka socda dooxa marka mar walba farmaajo saameyn gaar uu ku leeyahay Jubbaland laakiin inuu isgaabiyo xiligan oo kale dad badan oo siyaasadda aad u darso xiliin oo aad u qurux badan inta dhiiqa uu gali lahaa afkiisa inuu qabsado wax u dhaama malaha aad iyo aad ayuu maadsan yahay maslax Abubakar Xaaji oo la falanqeynayay xaaladihii ugu dambeeyay Jubbooyinka sababaha keenay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka aamuso doorashada axmed madoobe dhinaca kalena uu diido inuu u hambaliyay halka kulana jiis madaxii hore ee NISA uu sheegay
in uu dowladda Soomaaliya ku garab taagan yahay soo qabashada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe haddaba daawade sideed u aragtaa in farmaajo uu ka aamuso dib u doorashada Axmed Madoobe sideed u aragtaa in kulana chiis oo si weyn uga soo horjeesaday xasan sheekh maxamuud uu hadda ku taageersan yahay soo qabashada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe fikirkaadii aragtaa halkaas ee faalada nagula wadaag halkani waa Maanraac TV aniga saaxiibka maslax waxaan leenahay fi amaan illah